waa bilaabatay jarmalkii laba dhalinyaro ah bay maanta waxa weeye diyaaradii saareen saxiixi xasan munaafaq waa shaqeeyay eegay jarmalkiina waa ka bilaabatay haafeen iyo hafdheeriya laba dhalinyaro ah baa la qaatay oo bilaa sharci ahaa oo sharci suga ahaa baa muqdisho maanta laga dajiyay xasan wuxuu qaadayaa xasan balay dhaqa munaafaq baan oho haddaan gaal weyn arkana sujuudun baan la dhici rukuucdana waan ku dari munaafaqa waxaan lahaa safaaradii ingiriisku tagayo dhalashadii boqorkii ingiriiska ninkii dalkeena kala gooyay ayuu toortadiisi loogu yeeray waa madaxweyne dhan oo Soomaaliyeed $30,000 buu qaatay halka laamiga ku dhufo hadaad maqashid oo afarta qabla bala kaaga timi waa xasan munaafaq bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh kulanti waana wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeennii iftiiminta xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada oo aynu maanta isku dul taagayno laba qodob oo qodobka kale ka daran yahay kana naxdin badan yahay kana foolxun yahay dhigi jiro wuxuu cadaab bageeray ka day musiibooyinka inagu dhacaya iyo inkaaraha inagu dhacayana xasan munaafaq ba awal iyo aakhir ah qodobkana koowaad waxaan doonayaa inaan isdul taago meeshii jarmalka ahayd iyo musiibada ka dhacday barnaamijkaas hadduu soo gaaro si share garay haddii dhiig Soomaaliyeed ku jiro oo qof Soomaaliya tahay dalkan iyo dadkan ka naxaya barnaamijkaas si share garay like tuna barnaamijku meel fog bay gaarsaay like ta barnaamijku booba wixii aragtidaadana comment-iga ugu reeb xor baa u tahay halkaas waxa weeye sidaa doonto ugu galgalo dala deegay qodobkana koobaad jarmal saxiixi maalinkii dhaweyd iyo lacagtii xasan munaafaq loo saxiixay iyo ariya imisa kaaga baxda bishii qaxootiga Soomaalida waayada isu jarmalkii way 20 milyan ariya 2 sano ugu dhufo waa tuu laba dhalinyaro ah oo sharci sugayaal ahaa oo saxare soo maray oo Liibiya soo maray oo intaas oo god iyo bahal iyo halaq iyo waxa weeye magafe iyo dhibaato adduun oo dhan soo dhambaystay oo waxa weeye dadkoodii iyo ehelkii ay ka yimaadeen iyo waalidiintood guryahoodii u soo gadeen oo maanta jarmalka tagay oo iska shaqaysanayay sharcigiina sugayay baa horta lagu bilaabay laba la kacay maanta labo shalay baa laba la haaday Soomaaliya waa tijaabadii ugu horeysay Muqdishoana laga dajinayaa waxaan u maleynayaa saacadan in la hadlayo inay Muqdisho joogan wayna soo hadli doonaan biidnillaahi ta'ala haday nool yihiin sidii caadad ahayd eegay cayaarihii waa bilowdeen jarmalka laba dhalinyaro ah ayaa waxa weeye la qaatay oo sharci sugayaal ah oo warshada ka shaqeynayay jarmalku wuxuu wadamada Yurubka wuxuu ku jiraa wadamada faraq tiriska ee qofku isagoo bilaa sharciya uu shaqaysan karo isagoo bilaa sharciyana laysan uu qaadan karo yeesanka gawaarida lagu wado baladay aqoonsiga gawaarida lagu kacayo uu qaadan karo laba dhalinyaro ah shalay la qaatay waa la haaday baan ku baladeegay cayaarihina waa bilowday xasanna koontadiisii lacagtii waa loogu shubay reer jarmal marka dhalinyarada jarmalka joogta ee bilaa sharciga ee shaqaysta ilmaadeen rayaalow iskaga carara jarmalka baladeegay meel aan Muqdisho ahayn leedika dajin maaye wadamada kale Yurubta kale Scandinavian-kana ha aadinay Yurubta kale eegay afka saara baan ku meel walba Ilaahay waa joogay Yurubta kale ha loo cararo Faransiiska Belgiumka ilaaho beer ka doonto Talyaaniga bagalo meel aad sharci ka helaysid eegay shaqana aad ka helaysid dadkii ehelkii aad ka timi inaad wax ka tari kartid xasan munaafaq baa dalka haysta ayax baa dalka hayste u carara dhalinyarada intaas aan leeyahay rag iyo dumarba inta waxaan kaga gudbayaa xaaladda jarmalka Scandinavian kala dawa ka waraysan laysu soo dhigay baasaboor hada cusboonaysid cirka kula aadaysa oo EVC hada qaadatid EVC hada qaadatid Muqdisho marka tubaaq $60 cirka kula qabanaysa ama citizen sido ama ha sidanin way ga dignin qodobkeena labaad ninka xasan munaafaq ahaa waa madaxweyne dhan oo ummad dhan magacoodii ilaa ninkan haduu sidiisii waxa weeye timirtu Masar ka soo guran jiray iyo inji ooyadiisii iyo jaamacadihii wuxuu ka shaqayn jiray iyo waxa haduu waxa weeye uu ku doowarsan jiray uu ku jiri lahaa ileen anaga waxba nagama geline hadeerba kuwa dalkii dadka boobaye ninkani wuxuu sitaa xasaanadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan Soomaalida wax ku maxmaada madaxa meel ka sareyso la taabtaa ma jirto xasan munaafaq waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed buu ku magacaabay haddaba maanta maxaa dhacay maxaa xalane ka dhacay safaaradii Ingiriiska maxaa ka dhacay caalamkii maxaa laga hadalhayaa wuxuu yiri ninkii jiray geela buu yiri
geela buu yiri kiisa weyn durduriyay aarankiisana maxaad moodaa ummad madaxdoodii dhamay sidaa u bahdilan tahay eegay iyaga maxaad malaynaysaa ileen geed waliba dheecaankiisu dhalaaye ummad kastaana hogaamiyahoodun baa ka soo baxa ummad kastoo dunida jirta sida ay yihiin qof ah un baa ka soo baxa eegay haddaad qurun tahay qurun baa kaa soo bixi haddaad Soomaali tahayna xasan munaafiq oo minan baa kaa soo baxayo waa dif iyo naadir in shakhsi fiican la helaa ka fiican iyaga lagu qabsadaa safaaradii haddaba Ingiriiska gumeystii ugu xumaa ee dalkeena kala gooyay boqorkii Ingiriiska dhalashadiisii baa xasan munaafiq loogu yeeray madaxweynihii dhamaayo ummadda Soomaaliyeed ku magacaawna waa ka tordu jaraya maxaa la yiraahdaa cake torte bidaan reexamarku torte cake buu jaraya cake maxaa ku qoran taqaan boqorka Ingiriiska magaciisa dhalashadiisa waa ninkii isaga awowgii la gub isaga iyo awowgii iyo ayeydiiba ay ka shaqeeyeen dalkeena Soomaaliyeed maanta Ethiopia 77 wixii ina kala raacay aad ogeydeen Soomaali galbeed iyo NFD ninkii bixiyay dhalashadiisii weey meeqa la siiyay makaraysa waa albaab furan madaafe xasan waa albaab furan madaafe meesh horaan idinku sheegay lo'du waxay taada meeshan xiiraba allah xiin mari meeshan xiiraba allah xiin mari meeshan xiiraba allah xiin mari xasan wuxuu taagan yahay meeshii dollar joogaba allow igey meeshii dollar joogaba allow igey $1 dhaafi mayso sinti dhaafi maayo xal maqli jiray hebel sintugu biyaha kama daadiyaan maqli jiray xasan munaafiq sintugu biyaha kama daadiyo $1 aragti baa ka dhaxaysa $30,000 baa la siiyay oo madaxweynaha dhammaay ummadda Soomaaliyeed $30,000 baa la siiyay oo check waliba adigana sharaf ku tabaadiyay boqorkii Ingiriiska ku arkaya ilaan gaal haduu arko meel baa waxaan maqli jiray markaan faahiye arkana dhareerka ay falalaqsiray markaan faaduma arkana lugta faataa faqtiri ilaan gaal ba haduu arko dhareer baa ka qabanaya waa qoyaya markaasuu dibcaya markaasuu waxa weeye didgoonaya markaasuu dididaya markaasuu rukuucaya sujuud ku daraya markaasuu neekinaya gaal ba haduu arko waxa inta sii dheer keegan aad arkaysaan Calays Ciise Allah u naxariistay ninkii laandeeraha ahaa ee abwaanka ahaa ee waxa weeye suugaantiisa aad garanaysaan ee gumeystaha sidii loo ogaa ula dagaalamay ee baalka dahabka inoogu qoran abwaanadii gumeystaha afkoodii adinkoodaba kula dagaalamay Calays Ciise suugaantiisi ayaa Ingiriiska wuxuu yiri boqorka Ingiriiska hal lagu amaano markaas gabadh yar loo dhiibay gabadh yar markaas waxay leedahay lorjinka Ingiriiska hadii kale waxaan lahaa xasan munaafiqna halkan uu taagay xasan balay dhaha munaafiq baan haddaan gaal weyn arkana sujuudun baan la dhici rukuucdana waan ku dari munaafiqa waxaan la Ingiriis hadii kale waxaan lahaa Ingiriis buu leeyahay waa daba taagay gabadhu daba taagay madaxweynihii baa niikinaya oo qaadaya u niikinaya hadii kale waxaan la Ingiriis waxaan maqli jiray nimanka iidoor bari Ingiriiska jecel yihiin aad u jecel yihiin Ingiriis hadow ku sidii naag carmal walba inta dhali weyday markii aan ku arkay ku caashaqay xagee ka dhunkada bari in laga haya iidoor ali yiri gabiisu Ingiriis hadow waa ku calmaday xagee ka dhunkada nimankii iidoor waa dhaafay waxa dhaafay xasan munaafiq baa dhaafay leefka laba indhood dagaal ma ka qaaday sujuud buu la dhacaya bal idinku ba iyo hoogan iyo balanbalkan eega haduuba arka war rukuucayaba sujuud ba xigta baleeg bal meesha idinku eega Allah idinku dhaarshay laba indhood haduu ka qaado waa rukuucayaba naag tii islaantii Ingiriiska markay baqtidayna bahal rukuuc u leeyahay markaasuu oo fiq yaa hadda aabihi awowgiiba in meel lagu gubay Soomaaliyeed rugmatay eegay baad moodaa dawaanikii Nairobi ka lahaa maxaa waxa weeye idinka xasuusinaya waanikii lahaa Muqdisho qaraxa markuu ka dhaco kama naxosan Nairobi uga naxo sababtoo anagu qaraxa waa la qabsanay kulaha warma qof dhimashada iyo ba iyo hooga iyo balanbalka iyo qarax la qabsada jira oo caashaqa oo caadi u arka anagu haddaan reer Muqdisho nahay buu qaraxa waa la qabsanay laakiin Nairobi waan ka naxaabuy baqtigoodana waa idinka ogaaday uu sujuudayay waxa weeye kuwii geeda lagu laayay eegay ee wiilashu ku cibaadaysteen laakiin uu rukuucay madaxweynihii Jarmalka waa idinka ogaa tii Ingiriiska waa idinka ogaa eegay tanna waa maanta
haddaad tagaysid dhalashada ingiriiska gabadhii khadra maxaa la jira khadra cabdiqayaad mehed gabadhii khadra jilbaabka sidatay halka milyan gaadhay xafladeedii maxaa u tagi waday tiktoker dahayd taasaa kaaga sharaf iyo karaamo badnayde intaad tagaysid boqorka ingiriiska dhalashadiisa gaalku dhalee cadowga ah adoo madaxweyne Soomaaliyeed oo 30 kun aad qaadanaysid iimaan laaw maxaa u tagi weyday gabadhii tiktoker dahayd baa kaaga qiimo badnayd gabadhii jilbaabka sidatay maalintii loo la hada hayay la maagay maxaa la khadra cabdi biya la yada mise farxiyo lukina gabadha maxaa u tagi weyday xafladeedii gabadhan jilbaabka sidata ee halka milyan gaadhay loo tabaaldegayay tiktok oo dhan baa u dayna tiktoker baa tahay eegay tiktoker ka ku dhaame gabadha Soomaaliyeed baa kaaga ficneed oo tiktoker dahayd 1 milyan bay gaadhay bali gabadha maxaa u tagi weyday xafladeeda happy new year kid dadku isugu yimaadeen baladeeg taasa kaaga sharaf badan waxaan oran lahayn Xasan Munaafiq oo tagay gabadhii farxiyo kuulim yaad mise khadra cabdi xafladeedii buu tagay baladeeg maxaa u tagi weyday taasa lagu qaat waa ku buunbuunin lahayn wallahi waa ingiriiski waa cadowgu dhalay waa madaxtooyada gaari laga qaaday xalana la geeyay baladeeg waa ka من دي وين باللودي راح أقول happy birthday to you the king of the king in إنجلترا تشولس ألكسندر كون نكهن ما تقالنا نكهن وهرج ميسي إيه نكهن ولي قال هذا واتش عليه ماله أمره واي مال الله لا يمال وهو كعنكي وما الصوماليات بهرت هجناية شو نكهن ولي قال واتش على ولي وقال على لكن ماله أمره واي wuxuu isku darsaday iimaan li gaala jacayl alla ka dheeraansho waxaas aad difaacayaan qaar ba koreeya uu ninka waay hawiyo wariyaan hawiyo waay hal difaaca hawiyo wala difaaca ma hawiyo nafu haya hawiyo miya nool hawiye waliba reerka abgaal la yiraahdo meeye harti abgaal meeye muqdisho xitaa waa ka saaray baan ilaahay waan ku dhaartay kuwa uu ka dhashay abgaalka uu ka dhashay buu gaajo ku dilay gaadhu ku dilaan ku oo dhulkii ka xaraastay meel allaale iyo meel u dhaafay buug inta la leeg ma garanaysaano farmaajo u dhiibay baladeegi inta fayra la leekaayo waxa weey wax waliba ku jireen waxaan la yaabanahay madaxtooyada Soomaaliya marka ninkan kursiga laga wareejinayo waxaan ka baqayaa madaxtooyada raanta la raan oo la leeyahay 20 milyan baa rahan la dhigtay madaxtooyada Soomaaliya baan ka baqayaa iyadoo deyn lagu leeyahay madaxtooyada oo waxa weey madax furasho loo haysto eegay baan ka baqayaa in kursiga laga wareejiyo fayl laga qaado warkiisa badaa maanta jarmalkii de dhalinyarto oo ku bilaabatay laba reer xamar ay qaadatay labo wallahi laba dhalinyaro in dhalinyaro waxa la ii sheegay wuxuu yiri laba dhalinyaro aan garanayo anna waa soo caaranay buu yiri waa soo baxsaday laba dhalinyaro aan isku waxa weey aag ahayna waa qaadatay buu yiri anna brother waa soo baxsaday buu yiri hadda waa baxa brother ani waa baxa buu Xasan buu yiri harashan u haya harash waa carar baxsad baan hay buu saaxib labana waa qaatay buu waa muqdisho laga dejinay isagina waa ka Xasan Munaafiq waxaas hadhow qabiil lagu daafacaya oo loo leeyahay boodariyo madaxweyne hawiye amaage hawiyahana umaage farmaajo qof nool buu ahaa oo waxa weey wallahi oo billahi oo tallahi farmaajo waa idiga fiicnaa oo farmaajo kunjeer idiga fiicnaa ee qabiyaalad baa idin dilootay oo qalbada idin taagan oo waxa xun iyo waxa san kala garan meysaan oo xumaha iyo samaha isugu kiinmida oo qabiyaalad baa leedika dhaadhiciyay muxuu Xasan Munaafiq idin taray hawiyo maxaad maanta maalinkii xanarkii odayga indhacade ee tuuga ahaan jiray isbaarada dadka wabiga ka iibin jiray maxaa loo rajeeyay Yuusuf indhacade miyaa loo rajeeyay ee habar gidir ee dadka masaakiinta wabiga ka iibin jiray marka iyo baraawo iyo shabeelooyinka haysan jiray shabeelaha hoose odayga haysan jiray Mooryaanka ahaa banarkii wuxuu leeyahay farmaajo iyo Xasan Sheekh ani shakhsiyadayda markaan ka hadlo farmaajo ay roonaa biilas isin jiray sideed kunaas isin jiray war ninkuu quudin jiray oo oday ku arkay oo waxaan rabbina aqoon ragna aqoon mooryaannimo tuuganimo war dadka biyuhu ka iibin jiray ninkan dadka Yuusuf indhacade biyuhu ka iibin jiray biyaha wabiga buu dadka ka iibin jiray farmaajo aniga ii roonaa Xasan walxay waxaan ku qabo male
hasa ahaatee qabiilkayga waaye buu leeyahay dadka noocaas war ma aniga nin inoolaynaya oo isharfaya wuxuu yiri naf magac weyday manfacna ha weydo naf magac weyday manfacna ha weydo nin aniga isharfaya oo maqaamkayga iyo sharafkayga iyo dadnimadayda iyo miisaankayga garanaya anoo Cabdifatax Boodhariya miyaa ninaan ilmaadeer ahaan ula simi waxa weeye ka raaci karaa qofku markuu jaahil yahay oo cawaan yahay oo aqli aan lahayn oo xaaraantii u kala socnayn waa nooca ninka farmaajo caayo le farmaajo waxa weeye aniga waa ii fiicnaa biila sii jir caruurtu ii biiri jiri laakiin xasan qabiyaaladan ku raac isbaaru haysan jiri Yuusuf ibn Cadaaliyada qabaa'ilada biyo maalka iyo dadkan maqtaqana banaadirig iyo cadcadka iyo marka iyo baraawo iyo madaxu ka guri jiray madaxa guriyooda xoog ku haysan jiray webiga biyuhu miisi jiray webiga Ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un webiga Ilaahay ee jeexan baan qori jirkaan hadaa ka shubatay $2 baa u tuuraysa Yuusuf ibn Cadaaliyada ninkaas dawladnimo iyo wadaniyad nooga shaqeynaya xasanna noociisa miran baa taageeriyo sharafkii qaranka ummadda Soomaaliyeed waa baabi'iyay karaamadeedii waa baabi'iyay dadnimadeedii waa baabi'iyay magacaygu waa baabi'iyay sharafkii ummadda Soomaaliyeed iyo hantidii maguurtada ahayd iyo tii guurtada iyo kuwii qabriyada ku jiray iyo kuwii qurbaha joogay meel lama nooma dhaafin asal waryaariya hawiyo waa difaacaheena hawiyo dal xoreeyo dal xaraashe iimaan laawe buldaanana way albaafur ma dhaafe ayax gaal laba indhood haduu ka qaadan rukuuc iyo sujuud israacinayo warbalniiman yahow war xasanow warbal sujuud iyo rukuucda kala reeb sujuuda iyo rukuucda kala reeb iimaanka Allah ka qaaday kugu soo dhawaane waxa madaxweyneena ah ilaahay baa idinku dhaab kaasa qabiil ku taageeraysan kaasa hawiyenimo ku taageeraysan Soomaalida hore loo sheegay waxa la yiri ninkii aakhira u dira oo cadaabaha jirsiya eegi ilaahay yar baa jeebka ugu jiro oo qabyaalad asnaam yar laata iyo cusa jeebka ugu wada jira Soomaalida ninka noocaasa ee sharafkeena iyo karaamadeenni baabi'iyay saynoo baadilay qabiil baa lagu taageeriyay ariga hawiyo waaye baa lagu leeyahay kuwa hadda Jarmalka ka qaaday ilaahay amarkii namarka ugu horeeyana kuwa dadka ugu xigo ku dhacaa hadda labadu Jarmalka ka qaaday laba hawiyo baa yiraahdaa xamara huf bay qaad soo hawiyo yaqaan ya abgaaliyo waxa uu yaqaan ya waasla iyo shaka war wallahi idinkan cali gaaf haduu hela kaash buusanaya kaash cali gaafka laftirkoodu kaash garaysanaya iyo waxa isla aban niyo xasan baa lahaa ninkan aka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahu kan naga soo gaar war si shar garay barnaamijka khayr iyo baraka idin jeenay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh